waxaan iminka idin galayaa ninka dayacan ee qaranka dayacay ee dantiisa raacday ee xasan garguurta la leeyahay qabyaaladiisa sidoo qarnimada Soomaaliya ugu ciyaaraya ee uu taariikhdu u baabi'inayo ee uu dawladnimada la dagaalayo ee uu xaqiiqsaday inuu soo laaban doono maalin loogu diri doono isleeyahay dalkan galaafan idin bilaabaya inaan ka sheekeeyo haddaad kaga sheekeeyo wallahi oo billaah tallahi waan hubaa inaad xaqiiqsan doontaan in garguurta uusan ahayn hogaamiye Soomaaliyeed garguurta inuusan ahayn madaxweyne Soomaaliyeed garguurta inuu yahay dumiyaha qaranka Soomaaliyeed maanta dibaan u dhiganaya idinka sheekaymayo hawiye qabyaalad ah oo idin dhihmaya xasan hawiyo nimo ayaa ku jirta idin dhihmayo xasan hiraabnimo ayaa ku jirta idin dhihmayo xasan muduloodnimo ku jirta idin dhihmayo xaq iska dhig xasan abgaalnimo xagga dhig waxaan intusinayaa wax aad la yaabtaan taliyihii guud ee nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed waa nabad sugidii sirdoonki qaranka Soomaaliyeed wuxuu taliye kaga dhigay Cabdiraxmaan Tuuryare Cabdiraxmaan Tuuryare yuu yahay waxay isku isla yihiin Xasan Sheekh Maxamuud waa waceysle waa Eebakar Gaab taliyihii booliiska Soomaaliyeed wuxuu ka dhigay General Gaskas yuu yahay waa waceysle waa Ismaan Macalin Tuuryare maxaa laga dhigay wuxuu ur Tuuryare waa general weligii ciidan soo marin wuxuu ur Gaskas waa general waa si soco taliye ku xigeenkii militariga Soomaaliya ahna madaxa saadka wuxuu ka dhigay Cabdullaahi Macal Nuur yuu yahay waa abgaal waa waceysle waa Cabdiraxmaan wuxuu ka dhigay general weligii askari soo noqon wuxuu ka dhigay general haddaba aan soo kaxeeyo marka madaxtooyada dhex keenaya madaxtooyada ayaan saa'id dhex istaajinaya bal madaxtooyadii Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliya laga maamulayay ee madaxweynihii uu joogay ayaan rabaa inaan tusiyo yaa maamulo marka madaxtooyadii waaya waxaan tusinayaa marka bal waxaan u kala qaqaadi doonaa qayb agaasimo ku xigeen koowaad ee madaxtooyada waxa la Saadaq Cali waa waceysle waa Cali Gaaf okay agaasimo ku xigeenka labaad ee madaxtooyada ahna madaxa maamulka iyo maaliyadda waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamed waa waceysle madaxa baratikolka madaxtooyada waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Aadan Ismaan Kambara waa waceysle waa Cali Gaaf madaxa shaqada iyo shaqaalaha madaxtooyada waa Cali Atam waa waceysle waa Cali Gaaf madaxa arrimaha bulshada madaxtooyada waa Cabdiraxmaan Timos waa waceysle waa Cali Gaaf waa waceysle waa Cali Gaaf waayahay taliyaha nabad sugidda madaxtooyada iyo sirdoonka ninka haysta waxa la Xasan Goobe waa waceysle waa Cali Gaaf taliyaha booliiska madaxtooyada waa Mastar Qadar Lilaado yuu yahay waa waceysle waa Cali Gaaf taliyaha labada guri ee marwooyinka madaxweynaha labadiisa guri taliyaha ammaankiisa qaabilsan waxa la maslax waa waceysle waa Cali Gaaf madaxa logistikada madaxtooyada ninka qaabilsan waxa la
ياسين دغول وعسله وعلي جاف madaxtooyadii dhamayd laba nin ayaa joogta waa ninka laga dhigay taliyaha guud ee ciidanka madaxtooyada oo leeyahay Ibrahim Sheekh Maxamuud oo wasangili ah iyo agaasimaha madaxtooyada ninka laga dhigay oo leeyahay Ali Balcad oo hiilibi bas inta kale waa wacisle dawladda Soomaaliyeedna wacisle waa dad sharaf leh wacisle huwa dad sharaf leh waa dad aqoon-yahana waa dad Soomaaliyeed waa dad xilka u qalmo laakiin de ma ahayn sheekadii ma taqaana rekooshinka ka shaqeynaysa meesha kama shaqeynayso dadka Soomaaliyeed xaq u leh in la shaqaaleysiiyo wacisle kaliya soo barta wacisle kaliya qaranka Soomaaliyeed matala waa may أنا ودتكي وعسلة simple as by so clean where I was born when I was growed لكن ما أهانن وحولي وعسلة وعلي جاف وعسلة وعلي جاف وعسلة وعلي جاف وعسلة 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 وجرال ومشاريع القاشدودي وعاد في رسالة ماريا دي كده مقدشو ودي كده مقدشو ماريا نكا عبد الله علوريه وهو عسله وأبسق دكتور الدمير قالها كسو قري دلك يا لودي وهو عسله وأبسق أقاسمها جود وسارد أرميها جودها يويا واحد ما رجلينا أرميها جودها فري وعلى عبدون حلا يويا وهو عسله ومع عسل وحن أركينا waxaan arkayno waa inta maanta warshidee taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka looga dhigay nin madaxweynaha ku reero oo waceesla ah sidee taliyihii booliiska Soomaaliyeed looga dhigay nin madaxweynaha ku cida oo waceesla ku jifo hoosa sidee madaxiisaadka iyo ku xigeenkii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya looga dhigay nin waceesla oo madaxweynaha ku cida power sharing kii away dawladnimada Soomaaliyeed away soo waxa laga moodo qanadumin xitaa ma la waayo abga loo dhiibo xilalka waxaan ka bilaabayaa waceeslan ka soo bilaabo kor aan socon doona qaybta labaad waxaan ka hal doonaa abgaal waxaan ka sii hal doonaa hiraab waxaan ka hal doonaa hawiye halkaas ayaan muujinayaa oo aan dadka tusinaya shacabka Soomaaliyeed goormay cadaalad imaanaysa محمد سياد بر محل ولا دجال ده ريكوشين وماشي وديبي iyo marixaan u dhiibay war marixaan waa dad goba maalin baan ka sheekeynay doona taariikhda marixaan waa qabiilka ay isugu tageen Soomaaliya oo dhan isaaq baa la dagaalay oo isna maaha waxa loo dilay marixaannimo maxamed siyaad bar madaxiisa hawiyo UNC ah waxay u dileen maxamed siyaad bar madaxiisa marixaan dhan geel loo dhac wax ka soo sameeyay ogaadeen oo SPM aha ayaa u dilay nimankii inta xamar istaagay jid marixaanka meel walba istaagay tahay marixaan qofka bash dilay SDF farqiiqay ahaayeen oo ma jeerteena ay ahaayeen kuba dilayay ay ahaayeen waxa dishay dirbaa dileen cid marixaan cid maanta Soomaaliya oo aan qabiilka dhan ee marixaanka ee bariga lagu heystay maxamed siyaad barre ayaa xilo ku taxay cid aanan dilin oo qabiil Soomaaliyeed ku duulin oo aan loo dilin kaliya maxamed siyaad barre ka dhashay ama xilka ku taxay ama waxa ku tagrifalen ma jirto haddana maanta qabiilka Soomaaliyeed ee arkaysiina inta soo dhibaato loo geystay hal maalin afkooda kama soo bixin xabashi baan dalka soo gelinay Kenyaan baan soo gelinay Soomaalinimanka go'ayna waa la soo keetay waana dilay war marixaan gobdhe hadii shalay qalad ay galeen oo nin reerkooda ah madaxweyne intii arkeen ay xil qabsadeen yar tan kale ceebtan kale ma ahayn bal fiirada listiga halkan مسياد برا waxaan مسياد برا madaxtooyada Soomaaliyeed ka wada dhigay reekoshid مسياد برا ka wada dhigay reed dalal مسياد برا madaxtooyada ka wada dhigay marixaan maxay waxaan saanay Soomaaliyeed dawladnimo ku dhalaysa wardad Soomaaliyeed wuxuu leeyahay waxaan ma qaadan anaga yeelmayno soo taa markuu Cabdullaahi Yuusuf amxarada keenay banaan bixiseen
oo hawiyuhu ay u badnaan ku banaan baxay oo laha amxaarad doormeyn ma Cabdullaahi Isfaad loo nacay daaradnimo aaway dadka xabashida xasuuqeen maxaa looga aamusan yahay war ninkan ka daran wax walba ka daran ee cadawga maxaa looga aamusan yahay ee dal iyo dad aan dan kala hayn ee dantiisa raacanaya shineem ugu toora xaaskiisa dhisatay guriga weyn ee ka soo horjeedo guriga shaqaalaha islaantiisa dhisatay magaalada dhan ba asaga dhisanaya bangan IBS li asaga dhistay safari apartments wax la sameystay dhulkii airportku dhawaa waa kan xaraashtay waa kan dawladnimo moodo wuxuu isaga leeyahay waa kan war qofka wadaniga muxuu sameeyaa ninkaani inuu horta wax soo wato uu sa dawladnimo dan kala hayn xasan garguurtay waxaan gartay aniga markuu caruurtiisii qaarna qoysna dajiyay Turkiga qoysna Tansaaniya dajiyay waxaan ii sheegayaa nin kasta oo Soomaaliya oo yimaado oo madaxweyne noqdo haddaan laga dhaafin sacabka loo tumayo haddaan laga dhaafin qabyaalada lagu taageerayo wallahi garguurta mid ku xun noqon doona annaguna ma niiraahno ilaahayow kan waana dhibayo mid ka fiican noo keen waxa ilaahu kana dhaafi mid kasta waan dhaafa markuu dhaafo mid ku xun ay yimaado dalq habq layso un basad wa habq layso wallahi